بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده إن شاء الله تعالى waxaan ku guda jirnay kitaabkeeni mukhtasarka ahaa 40 النووي إن شاء الله darsigan wuxuu noqonayaa darsigii 12aad oo kamid ah mukhtasarka إن شاء الله تعالى waxay noo soo joogtay darsigii 11aad xadiidka 28aad baynu إن شاء الله ku istaagnay maanta waxaynu ka bilaabaynaa xadiidka 29aad oo kamid ah mukhtasarka waxaan ciwaan looga dhigay maa yudkhilu ljannata wa bayaanu sabiili الnajaah وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال wuxuu yihi qultu waxaan ku idhi buu yidhi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow akhbirnii bal ii sheeg buu yidhi bicamalin camal yudkhilunii igelinaya aljannata janno wayubaacidunii iga fogeynaya min annaari waa su-aal cajiiba mucaad baa wuxuu leeyay nabiga ayaan weydiiyey calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi rasuulka ilaahu ii sheeg camal haddii aan sameeyo camalkaas uu ilaahay janno igu geynayo sidaasi lamidan uu ilaahay naarta igaga fogeynayo rasuulka ilahu bal ii sheeg buu yidhi markaasuu qaala nabigeen wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam laqad sa'alta waad su-aashay buu yidhi can cadiimin can shayin cadiim shay weyn baa weydiisay wa inahu shaniya laakiin nabigeen wuxuu yidhi layasiirun waa u fudud yahay calaa man qofkii yasarahu allahu tacaala ilaahay uu u fududeeyay caleyhi korkiisa waa shay weyn baa i weydiisay laakiin wuxuu yidhi haddana ilaahay subxaanahu wa tacaala ciddii uu la garab galo u fududeeyaahi waa u fududahay buu nabigu calayhi salaatu wasalaam marka su-aashii buu ka jawaabaya wuxuu yidhi tacbud allaha ilaahay baad caabudi laa tushriku bihi shayan waxba la wadaajin maysid cibaadada ilaahay uu kugu leeyahay ayaad marka hore u kici ood qaban cibaadadaa uu ilaahay leeyahayna cid kala siin mayso oo shirki ayaa iska ilaalinaysaa wey wa tuqiimu salaada salaadan waad oogeysaa waad tukanaysaa shanta salaadood oo waajibaadkaana waad ka soo dhalaali oo waktigeedaad ku ilaalin waad tukanaysaa wa tu'ti zakaata zakadana waad bixinaysaa haddii ilaahay xoolo kuu dhiibo oo aad xoolo heshana dee xoolaha intii markaa ay marayaan tiradooda ay tahay wixii laga rabo oo sharcigu ku waajib yeelay ayuun baad bixinaysaa wa tasuumu ramadaana bisha ramadaanna waad soomi oo sanadkiiba hal mar weeye oo 30 maalmood ama 29 maalmood weeye oo soonkiina waad soomaysaa wa taxuju lbeyta guriga ilahina waad u xajiyaysaa buru nabigu calayhi salaatu wasalaam oo haddii ilaahay xoolo ku siiyo oo aad ku sii socon karto ood ku soo socon karto intaad maqantaan ilmaha iyo reerkaaga iyo wixii cuni lahayeen aad haysatid inaad xajka aadid weeye nabiga su-aashii la weydiiyey saasuu kaga jawaabay wuxuu ka bilaabay cibaadada ilaahay subxaanahu wa tacaala inaana cid kale lala wadaajin salaadana la tukado zakadana la bixiyo bisha ramadaan la soomo xajkana la aado uma qaala nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam alaa adulluka maku tusiyaa calaa abwaabi alkhayri khayrka albaabihiisi maku tusiyaa mucaad baa laleeyahay nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam asawmu soonku junnatun gaashaan waa ay maanicun yamnacu saaxibah soonka qofku markuu soomo wuxuu ka reebayaa fi dunya min almacaasi qofka ilaahay dartii u soomay ee afkii u xiran soonkii wuxuu sabab u noqonayaa buu leeyahay inuu macsiyada ka reebo wa fi alaakhirati min alcadaab aakhira markii la tagana uu ilaahay sabab uga dhigo miduu kaga badbaado naarta nabi wuxuu yidhi marka alaa adulluka maku tusiyaa calaa abwaabi alkhayri khayrka albaabadiisa asawmu soonka junnatun gaashaan weeye waasadaqatu sadaqadana tudfi'u way damisaa alkhati'ata gefka kamaa yudfi'u suu u damiyo almaau biyihiba annaara haddii dab biyo lagu shubo sida ay biyahaas dabkaasi u daminayaan u baktinayaan ayaa sadaqada lala baxayo nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam khati'ada iyo gefka kaadha ilaahay ku dhaafaya iyo wa salaatu rajuli ninka salaadiisa oo min jawfi leyli habeenka bartamihiisa ama dhexdiisa ahaatay waa salaatuleyl maxaa salaatuleylka waxaa weeyaan salaadaha waajibaadka kadib waa salaada ugu fadli badan uu qofka tukado waa salaatuleyl waa afdalu salawaati bacda alfariida uma intaa kadibna talaa maxaa yeelay salaatuleyl qofku markuu tukanayo waa xilli habeenah waa xilli mugdi ah cid soo jeedaa ma leh
marka waxay noqonaysaa salaad xilligaa dhacday waxay noqonaysaa salaad ilaahay dartii loo tukaday oon istustus iyo halagaa sheego aan ahayn wey. uma intaa kadibna talaa nabigu wuxuu akhriyey tatajaafa waxay ka fogeeyeen junuubuhum dhinacyadooda can ilmadaajici jiifka iyo seexashada xataa balaga ilaa uu gaaray yaclamuuna. uma intaa kadib qaala nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam alaa akhbiruka makuu sheegaa bira'si alamri arrinka oo dhan madaxiisa makuu sheegaa iyo wa camuudihi lafdhabartiisa iyo wa durwati sanaamihi kuruskaas baarkiisa makuu sheegaa. nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam alaa akhbiruka makuu sheegaa bira'si alamri amarka oo dhan madaxiisa iyo wa camuudihi lafdhabartiisa iyo wa durwati sanaamihi kuruskiisa baarkiisa makuu sheegaa. ana meesha ugu saraysa fiida kore. qultu waxaan ku idhi buu yidhi balaa yaa rasuula allah ii sheeg rasuulka ilaahayow. qaala nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ra'su lamri amarka o dhan waxaa madaxa waa alislaamu islaamnimo. qofka horta cibaadaysanaya waa inuu muslim yahay. wa camuuduhu lafdhabartiisana asalaatu salaada weeye. wa dirwatu sinaamihi iyo wa durwatu labada waa la akhriyaaye waayah. wa dirwatu sanaamihi kuruskaasa baarkiisana aljihaadu jihaad weeye buu nabigu alayh isalaatu wasalaam waayah. uma intaa kadibna qaala nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam alaa akhbiruka makuu sheegaa mucaadow bimalaaki daalika kullihi kaa dhammaantiisa midka soo koobaya makuu sheegaa. qultu waxaan ku yidhi balaa yaa rasuulallah rasuulka ilaahay ow ii sheeg. kadibna faakhada wuxuu qabtay biru nabigu calayhi salaatu wasalaam bilisaani faakhada wuxuu qabtay nabigu calayhi salaatu wasalaam bilisaanihi carabkiisuu qabtay. markaasuu waqaala nabigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam kufa qabo calayka dushaada haada kan ka qabo bir afkaaga carabkaaga ka ilaali ilaasho carabkaaga waxa ku hadlaysid. markaasaan qultu waxaan ku idhi buu yidhi yaa nabiy allahi ilaahay nabigiisiiyow wa inaa anagu ma waxaan nahay la mu'aakhaduuna kuwa loo qabanayo bimaa natakalamu bihi waxaan ku hadlayno mana loo qabanaya. markaasuu faqaala nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam thakaladka umuka hooyada ha ku weydo. waxaa waa kalima carabiya weeye laakiin waxaa loola jeedaa un alxathu waligraa'u walaa yuqsadu daahiruha muuqaalkeeda loolama jeedo. geela beele soomaalida waxay yidhahdeen caana beele gablame lakin haddana habaar loolama jeedo. nabigu wuxuu yidhi wahal yakubu nnaasa dadkama waxaa loogu ridaa fi nnaari naarta calaa wujuuhihim weji miyaa naarta loogu ridaa aw calaa manaakhirihim ama sanqaroor ilaa xasaa'idu alsinatihim waxay carabkooda ku keensadaan mooye. dadku ma waxay naarta ku mutaystaan ama weji ha loogu rido ama sanqaroor ha loogu ridee ma waxaa weeye ma waxay naar ku mutaysteen waxaan ahayn waxay carabkooda keeneen ay ku hadleen ay sameeyeen mooye. rawaahu tirmidiyu imaam tirmidi waa xadiidka wariyey wa qaala xadiidun xasanu saxiix. idan guud ahaan marka nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu noo sheegayaa khayraadkii abwaab alkhayri kulli markii lasoo sheegay xubinta ugu dambaysa ama qodobka ugu dambeya uu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam waa carabka. asukuutu salaamaa layidhi qofka inuu og yahay waxa uu ku hadlayo. maxaa le xubnaha jirka bani aadamka oo dhan waxay hoos yimaadaan ay maxbuus u yihiin carabkaaga waa. marka inaynu carabkaas uu ilaahayna siiyey subxaanahu wa tacaala aan ku hadalno wixii dhibana haysta ama dareenkeena aan ku muujin karno kusoo bandhigi karno oo wixii aan ku hadlaynana la fahmi karo oo qofka kale aan la hadlaysa uu fahmi karo inaynu ilaashanno khayrka ku ilaalino oo khayrka ku laazimno oon ku akhrino oon ku wardino wixii xumaanana intaan ka celin karno aan ka celino ayaa la rabaa wey. xadiidka soddonaada ka mid a darsigeena alwuquufu cinda xuduudi sharci xuduudda shareecada inaan la dhaafin meesha shareecadu kuu calaamadaysa inaadan gudbin oo waxaan ilaahay ogolayn aadan samayn. can abi thaclabata alkhushani jurthum ibni naashirin radia allahu canhu can rasuuli illahi wuxuu ka wariyey sala allahu alayhi wasalama qaala wuxuu yihi nabigu ina allaha caza wajalla ilaahay farada ilaahay wuu waajib yeelay faraa'ida waajibaad falaa tudayicuuha ayaan la dayicin
ilaahay waajibaad buu saaray addoomankiisa. addoomanka waajibaadka la saaray baynu ka mid nahaye yaan la dayacin buu yidhi. waxadda ilaahay wuu calaamadeeyey xuduudan xuduud, falaa tactaduuha yaan la xadgudbin oo la gudbin, xuduud yaan la dhaafin. manaa shay waxaa jira haddaad u tallaabsatoo samayso xuduud ilaahay baad dhaaftayoo wixii ilaahay aan ogolayn baad u tallaabsatay. wa xarama ilaahay wuu xarimay ashyaaa waxyaabuu xarimay, falaa tantahikuuha yaan la jijibin, wixii ilaahay xarimay yaan la samayn oo la dhex dabaalan. wa sakata ilaahay wuu ka aamusay can ashyaaa waxyaabuu ka aamusay raxmatan naxariis oo lakum idinku idiin naxariisaya, gayra nisyaanin uu yahay ilaahay midaan ilaawine, falaa tabxathuu ha baarbaarinin canhaa xaggeeda yaan la baarbaarin. soo arki maysid, maxaa yeelay taladoo dhan ilaahay baa iskale subxaanahu wa tacaala, isaga ayaa waajib yeelaya. wa huwa aladii yuujib wa huwa aladii yaxrum, ilahay isagaa waxna waajibinaya waxna xarimaya. faalamru biyadihi, talada ilaahay gacantiisay ku jidhaawa. soo arki maysid, walaa axada yastadiicu an yuujiba maa lam yuujib illaah, qofna ma aboodo inuu waajibiyo waxaan ilaahay waajibin subxaanahu wa tacaala, ama qofna ma aboodo inuu xaaraam ka dhigo waxaan ilaahay xarimin. soo arki maysid, wa hada min tamaami raxmatihi subxaanahu bicibaadih, marka ilahay waxna waa nagu waajib yeelay, inaan dayacnana lama rabo, xuduudna waana loo sameeyey, wa tilka xuduudullaahi. soo arki maysid, ilahay xuduuddiis in la gudbana lama rabo. waxna waa uu xarimay, wuxuu ilaahay xarimayn inaan iska xarimno inaan samayn baa la rabaa, inaan u tallaabsan. waxna ilahay waa ka aamusay asoon ilaawin, naxariisu ilahi subxaanahu wa tacaala addoominkiis u naxariisanaya daraaddeed ayuuna ugu aamusay weeyaan. rawaahu xadiithun xasanun rawaahu daaraqutniy wagayruhu, xadiidkan imaamu daaraqutni ayaa marka iyo kayrkiisii ayaa markaa weriyey. xadiidka 11 oo ka mida dersigeena 12 waxaa ciwaan looga dhigay alxathu cala azuhdi fi dunya. waxaa jira azuhdu fi dunya iyo azuhdu can iddunya, inaad adduunka ka dhex baxdo oo buuraha meelaha inta iska geshid oo aad tidhaahdo maba shaqaynayaba, halkaasaan ku cibaadaysanayaa, ma loo baahna. adoo adduunkaagana haysta, beertaadana qodanaya, xoolahaadana xanaanaysanaya, ganacsigaana ku jira, shaqadaana wadata, ayaa rabaa zuhdi inaad ku noqoto, adduunkaadan ku mashquulin. wa can abilcabaas waxaa laga wariyay sahl ibni sacdi saacidi radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi jaaa rajulun, nin ayaa yimi ila nabiyi nabigu u yimi sala allahu alayh wasalama, markaasuu faqaala wuxuu yidhi yaa rasuula allahi, rasuulka ilaahayow, dullanii itusi calaa camalin camal, idaa camiltuhu haddii aan sameeyo, axabanii allahu ilaahay ijeclaanayo, wa axabanii annaasu dadkana ay ijeclaanayaan. warkiyo kooban, rasuulka ilahi wuxuu yidhi waxaa i tustaa camal aan qabto, camalkaa markaan qabtanoo ilaahay subxaanahu wa tacaala ay abuurtay i jeclaanaya, dad baan ku dhex noolahay oo keligay ma ahiye dadkana ay ijeclaanayaan. markaasuu faqaala nabig wuxuu yidhi alayhi الsalaatu wasalaam, izhad ka zaahid fi dunya, adduunyaysan kula tegin, wixii kaa anfacaya ka shaqayso, kadibna cibaadadaada xaggeeda u go oo cibaadadaada samayso. yuxibaka allahu, ilaahay baa ku jeclaanaya. wazhad ka zaahid oo ka tag fii maa cinda annaasi, wixii dadka agtooda yaalla, xoolaha ilaahay dadka siiyey waxba ha weydiisan, ha ku mashquulin, ii dhiibta ha ku badin. yuxibaka annaasu, dadkan way ku jeclaanayaan. yuxibaka annaasu, dadkana way ku jeclaanayaane waxa dadka gacmahooda ku jira iska daa ha weydiisan buri nabigu alayhi salaatu wasalaam. marka jumlad kooban waay, jumlad kooban buu nabigu ku cabira alayhi salaatu wasalaam. haddaad rabto inuu ilaahay ku jeclaado, adduunyuusan kula tegin, adduunka ka shaqayso, wixii ilaahay ogolya xalaalah ka qabso, laakiin cibaadada ilaahay iyo waajibaadka ilaahay ku saarayaysan kaa mashquulin. ilaahay baa ku jeclaanaya subxaanahu wa tacaala. waxay dadka haystaanna ha weydiisan, oo maxaa yidhaha maanta haddaad tiraa ii dhiib, oo beri tiraado ii dhiib, oo maalin dambe ii dhiib tiraa ii dhiibta ha ku badisid, dadku way ku nacayaan. marka dadka waxba ha weydiisan, waxooda xoolooda ha ku mashquulin baa layidhi. izhad ka zaahid fi dunya addunyo, yuxibaka allahu, ilaahay baa ku jeclaanaya. wazhad ka zaahid fii maa cinda annaasi, waxa dadka agtooda ahaaday, yuxibaka annaasu, dadkana way ku jeclaanayaan. xadiiث xasanu rawaahu ibnu maajah wagayruhu biasaniid xasana. insha allahu tacaala guud ahaan xadiiska marka waxaan ka qaadanaynaa in adduunkana laga faa'iidaysto, wax la barto, la shaqaysto. soo arki maysid, cibaadadan aan la ilaawin, kadibna dadka waxa ilaahay siiyeyna inaan baryada lagu badin. insha allahu tacaala dersigan
labiyo tobnaad oo ka mid aha duruusteeni matan arbiyana nawi halkaasaan istaagaynaa intaan ku kulmi doono darsigan darsi xiga waxaan idinkaga tegayaa salaamu ullahi calaykum waraxmatuhu wabarakaatuh